أبي ذر الغفاري من حق رادين أيها أخيرا وحي من مقالدي مكاهي يساقوا في ذني يساقوا ملايين يشيغان يينو يهي ربع الإسلام في وقت يساقوا في حدود علمي بين علماء كفاسرانون هيد لكن تذكروا ينشيغان يجرا وأي وحي هيد عهدي تذكر مسلمين تهي لعدادين أيو oo wax waliba ay qarsoon oo dadka u yimaada nabigu kaleey salaatu wasalaam tu islaamnimada u laqino uu yiraahdo tolkaas kaga noqo oo markaad maqashaan inaan guuleystay ii kaalaya Abi Dharr wuxuu leeyahay waxaan imi anigoo rubcul islaam buu leeyahay islaamka ba kii afriya saddex uniga horeysaba Abi Dharr al-Ghifari magaalada Makka buu soo galay Makka wuxuu soo galay iyadoo iclaamkii aynu sheegaynay taagan yahay qof islaam sheegan kara aanu jirin oo cid ku dhawaaqaynin magaaladu iska soo galay isagoo iska aamusan riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan cidna wax maan weydiin buu leeyahay dabeetana markii dambaan mid daciifsaday buu yidhi mid dadka ka mid ah sir buu yidhi kaas waa iska daciif waxna ma ogee kaa haddaad iska weydiiso tiraahdo war ninka saabiga ah ninka diinta cusub sheegaya xaguu joogaa malaa waa iska ka xil qarinaya midaan yara daciifsaday buu yidhi markii dambe ku yidhi buu yidhi ka saabiga maxamed xaguu jooga waaba igu qayliyey buu yidhi kiina kor buu qayliyey hada saabi hada bal kan diintii ka baxay ee caynka waaba lagu soo xumo waa la tumay bimujarad inuu cid weydiiyey xaguga laga helayaa ayaa lagu tumay sidii loo garaacayay buu Cabbaas soo gaadhay dabeetana wuxuu ku yidhi waa ninkana garaacaysaan ma garanaysaan war ninkani waa nin غفار وقبيلوينكي دعايا بوعان بحي إسلام مركاسي وانن قبيل كيسة أيالين ودادا أي قريش سفردو دا مريان سفر كشام مركا لغو سعودا ودادا لمرو قبيل كيسة دكان قريش منطقي أي فهم يسيبو عباس كلها الضاء هذا كما إذن مارمين بولاي الشامين أو سفرتان نينك أحطو ميستان وانن بني غفارة مركاسان لايقا فوق يبوي لوقع عنتا لايقا قادا روايات qaarkood waxay sheegayaan markaa gaar ahaan saxiixaynku waxay sheegaysaa meeshii isagoo iska fadhiya inuu soo maray Ali ibn Abi Talib oo nin yari oo arkay ninkan qariibka meesha iska fadhiya iska qariibnimada ka muuqato markaas ku yidhi mala ma inakeen waa iska daba galay maana wada hadal buu yidhi gurigii buu geeyey habeenkii buu marti sooray subaxii buu alaabtiisii iyo wixii qarbadkii yaray intii biyo ku sitay wixii buu iskala soo noqday أبي ذر وحكو صار نقضي مكديسي بيتكي ماشي يعني يسبكي دمبو هدانا علي صامر إنكيو والولي بياد هلين بودي عيدي ديديسي إنا كان واكي حيي هبينكي إلا بدنا واعسومي وصار نقضي هبين سادحات كي بادر إنكي أركو عدادي يسكفر ديا على هدانا عسومي مركي دمبو حكو يدي مياد عيدي هلسي وحبطوني هلينو وحان ربوان كويدين يبالان قاد بودينا تقارنيسو waa ku qarinayaa buu yiri waxaan doonayaa buu yiri ninka diinta cusub la yimi ee caynkaasiya soo daba gal buu yiri halkaan ku socda weeyaan waxaan ka shakiyaa hadda arkabu ku yiri riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin wuxuu yiri sidii nin biyo qubayaan iska dhigaya marka faham meeshu waa minaysantahay isku imanni riwaayadka qaarkoodna wuxuu oranayaa kabahan hagaajinaya hadda aragto anigoo kabahayga tumtumayo hagaajinaya waa ما هجاك سنة ساوجو سيبان كده بقى ليبود والله من إنه استبى الصعدة وهو وضع الصعدة وقرصدق وجارسي سيء هينانو شيغان كارين ماشي كوضع الصعدة كدبنا أستانتي وحبوط سيدي بوجيبي نبي عليه الصلاة والسلام سؤاله ودي ويديي حديث كوا سوكو بين محل الشاهد كي نصعنا محل الشاهد كحوي هو السلام مركو السلامي نبي عليه الصلاة والسلام حبوط المامي inuu tolkii ku noqdo marka uu maqlo inuu guuleystay inuu u yimaadaan waayo nima qariiba oo aanu dhalan magaalada caynkana dacwada culays uu ku yocdo ma ilaalin karayso wuxuu waa noqonaya laakiin wuxuu dareensay dacwada mas'uuliyadda inuu la asrakhanna biha wa ku dhawaaqi doona buu yiri quraysh dhexdeeda kaga sii dhawaaqi doona dib u soo laabtay dabeetana intuu makaysi dhex taago ashhadu an laa meeshii guriga nebiga lagu socdo la qarinayay ayuu wuxuu isla dhex taagay inuu ashahada kala dabeetana waa lagu boobay dagaalkii
cabaas ba haddana ku soo baxay waa arrinkan aad tubaysa waa nin reer khafaari miidan gara waka waa laga tegi maayo buu yidhi laasrakhanna biha waa ku dhawaaqaya maalin saddexaad dib oo haddana kaga dhex dhawaaq sidii oo kale loo tubo haddana cabaaskii baa loo bixiyey uga tegey yacni bimujarad inuu islaamay ayuu wuxuu dareemayaa dacwadan in mas-uuliyadi ka saarantahay walow lagu dilayo ama naftiisa dhibi ka soo gaadhayso ama mushkiladi ka soo gaadhayso ay rakhiis la tahay wuxuu arkayaa ammaanatun calaa caatiqihi inay tahay inuu dadkan kelimatu tawxiid ugu yeedho mahmaa kaanat iduruuf ama hala dila ama hala daayo ama wixii la doona hala sameeye intuu dacwo gaadhsiin kara ama diin gaadhsiin kara inuu gaadhsiiyo waxay ahayd baynu leenahay bimujarad inuu qofku jundi muslima noqdo dareenkaa inuu islaamay baa wuxuu gaadhsiinaya baaro diinta tan inuu dadka u sheego sida loo kale muuqaal qurux badan yahay baa la isu kala horumariyaa waa maadiyiin laakiin diintu taa maaha sidaa ogeed waxaa jirta qiso caana saxaabi baa jiray isna raggaa aan quruxda badnayn ka mid ahaa waxna haysanin marka waa nin aan quruxna badnayn maal adduunyana lahayn markaasuu nebigu weydiiyey julaybiib baa la yidhaha war julaybiibow maxaad u guursan weyday oo yaa ii guurinaya buu yidhi aniga maal lama lihi yacni baa ka muuqada een qurux laygu raacana igama muuqato gacantaydana wax kuma jiraan yaa markaa gabadhii guurinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu baxay qolo ansaara buu u tegey ansaartii nimankii ahaa markuu u tegay wuxuu ku yidhi yaa fulaan zawijni ibnatak waar hebelow gabadhaada isi guuri saxaabadu inta badan way jeclaayeen xididnimada nebiga calayhi salaatu wasalaam inay nebi moxamed xidhiidh la yeeshaan walidaalika baa la yidhahdaa ansaari hadday nin ansaarta ka mida gabadh u kacdo wuxuu la hamiyi jiray sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu guursan lahaa ninkanna waxaaba u yimi nebigii oo leh inantaada isiiyoo ii guuri dabeetana nicima wa nucma caynin buu yidhi yacni waa erayo tilmaamaya si uu ugu faraxsan yahay waa dee khayr uu bushaaraysanayo waa waxayli ku doogsataa buu leeyay nebi moxamed oo gabadh naga soo doonay calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi innii lastu linafsii uriiduha anigu lafahayga uma doonayo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam gabadhan ku weydiisanayo anigu ma aha qofka guursanaya qaala faliman buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow haddaa ayaad u doonaysaa ergayga ka tay qaala lijulaybiibin buu nebigu yidhi julaybiib baan erga u ahay markaa ninkii wixii uu moodayey waxaan ahayn baa soo baxay markii hore go'aanka keligii baa iska qaatay markan wuxuu leeyahay ilaahay rasuulkiisiiyo balaan islaantii la tashado arrinku hadduu julaybiib yahay aan islaantii ku noqdo xaaskii aan u tago hooyadeedaan wax weydiiya buu yidhi wuxuu u tegey islaantii inanta dhashay markaasu wuxuu yidhi nebi moxamed baa gabadh inaga soo doonay calayhi salaatu wasalaam iyana sidii oo kaley tidhi nicima wa nucma caynin waa waxayli ku doogsato waa badhaadhe bay tidhi haddii nebi moxamed ba inoo yimi calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi lafihiisa isagu u dooni maayo qaalat faliman yuriiduhaa oo haddaa yuu u rabaa bay tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadha yuu u doonaya qaala lijulaybiibin julaybiib buu u rabaaba ayuu ku yidhi qaalat xalqaa lijulaybiibin xalqan haddii la yidhaahda bay yidhaahdeen waa cuna xanuun xalqa haddii la yidhaahdana bay yidhahdeen biduuni tanwiin waa xiirid waa eray u dhigma halkay soomaalidu ba'a yidhaahdaan ama ba'ayeey ama wax la mida yacni waa waxay aan rajaynaysay waxaan ahayn ayaa ku soo baxay se iyadu moodaysay si aan ahayn baa soo baxday laa lacamrullaahi laa usawiju julaybiiba ilaahay baan ku dhaartay julaybiib anigu inantayda siin maaya bay islaantii tidhi odaygii mar hadday islaantii ka hor timi wuu kacay
markuu is yidhi xaggii nebiga qaba calayhi salaatu wasalaam inantii way maqlaysaa warka dhex socda aabbaheed iyo hooyadeed ayay xagga dambe kala hadashay waxay ku tidhi waxaan idin weydiiyo yaa iga kiin soo doonay markaasaa la yidhi rasuulkii ilaahi calayhi salaatu wasalaam say tidhi atarudduuna calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam amra oo ma nebi maxamed baa hadal ku celinaysaan markaa inta nebi maxamed idiin yimi oo yidhi gabadhay siiya miyaa haddana nebigii celinaysaan bay ku tidhi aniga nebiga igu wareejiye bay tidhi waayo nebi maxamed marnaba aniga i dayici maayo ee hadiidina warka nebiga calayhi salaatu wasalaam odagiiyo islaantii inantii mas'aladii waa ka furfurta dabeetana waa aqbaleen nebigu u yimi odaygiiyo wuxuu ku yidhi sha'nuka biha fazawijha julaybiiba ilaahay rasuulkiisiiyow inantii waa ku siinay yacnii julaybiib iyo ciddaa doonaysa markaasi u guuri nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka axaadiista qaarkood waxay sheegayaan inuu u duceeyey calaa kulli xaal waa la dagaal galay julaybiib gabadhii waa loo dhisay waa la siiyey dabeetana ghasawaadkii nebigu uu galayay calayhi salaatu wasalaam ghaswo ka mida buu galay dagaalka markii laga soo noqday ayuu nebigu wuxuu yidhi tafqiduuna min axad yaa inaga maqan yaa la waaye markaasaa kolba nin la sheegaa hebel lama hayo hebel waa la dilay hebel lama hayo hebel waa la dilay dadkii siduu nebigu u lahaa tafqiduuna min axadin cid ma idinka maqan tahay ayaa markii dambe la yidhi may cid ima maqna markaasuu nebigu yidhi haddaba anigaa cid baa iga maqan oo yaa maqan ilaahay rasuulkiisu wuxuuhi walaakinii afqidu julaybiiban fatlubuhu fi lqatla war anigu ninkii julaybiib ahaa baan la ahy ee bal dadka la dilay ka soo eega waa la baadi goobay waxaa la helay 7 gaaloo maydoo meel yaaliya isagiioo dhinac yaalla waxaa la yidhi ilaahay rasuulkiisiyo halkaasaan ugu tagnay 7 maydoo gaaladiina waa yaallin isna wuu yaalla aqatala 7 uma qataluu haada minii wa ana minhu buu nebigu ku celaaliyey ma 7 dilay markaasay dileen kaasi waa iga tirsanya anna waan ka tirsanay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam haada minii waana minhu riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan inuu 3 jeer ku celcelinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana waa la soo qaaday nebigu gacmihiisuu u dhigay isagaa hayay intii xabaasha laga qodayay oo dhan nebiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisuu barkanaa markii xabaashii loo dhammeeyey baa la xabaalay oo axaadiista loo daliishado shahiidka inaan la maydhin julaybiib waa nin faramadhan buu ahaa nin aan qurux badnayn buu ahaa saxaabi ansaariyu ahaa laakiin wuxuu nebigu ku qiimaynayaa maaha madaahirta maaha siduu u ekaa rajul qasiir damiim bay leeyihin laakiin qasriga iyo damiimnimada nebigu wax kuma qiimaynaynin hanti muxuu haystay ee wuxuu leeyahay haadaa minii wa ana minhu kani anuu iga tirsan yahay waa min jamaacatii aniguna kooxdiisaan ku jiraa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam saxaabigaasi la odhan jiray tufayl ibnu camar addawsi qabiiladiisa oday u ahaaya nin gabyaaya ahay oo xikmad badan ayaa iska soo cimro tegey dabeetana wuxuu maka ku soo beegmay wakhti siyaaji iclaamiyi uu ka jiro cunaqabatayn aan idhaahdo xooggan oo xagga miidiya ahi ay haysato nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ay ku guulaysteen nimankii quraysheed inay dadka ka dhaadhiciyaan inuu nin ama sixiroola ama khatari uu joogo oo loo baahan yahay qofku inaanu hadal ka maqlin maaha inaanu raacin waa inaan codkiisu ku soo gaadhin tufayl ibnualcamar addawsi oo nin weyna oo odaya oo reer u talin jiray oo gabayaaya oo la yaqaanaa wuxuu leeyahy warkii siday igu akhrinayeen waxay gaadhsiiyeen inuu dhagaha fura soo gashado codbii intuu goostay inuu labada dhagood fureeyo uu isleeyahy bilaaba a iska soo hor baxdaan yaad codkiisa maqle inuu u tegayo ama uu socdo ama caynkaase waa haddiiba coaccidentia si uuna hayru caadiya isuga soo hor baxdaan yaydan codkiinnu isku soo iyo codkiisa aad maqlin wuxuu leeyahy markii aan meeshii yimi haddana wuxuun baa rumaystay
war nin weynoo caqli labaatee maxaa furtan dhagaha kaa geliyey nin weynoo waxa xun iyo waxa san kala garanaya nin weynoo gabayga iyo kahaanada iyo warka dadka kala saari karaya maxaa dhagaa kuu fureeyey furtaas ka tuuray buu yidhi dabeetana intaan u tegey baan ku yidhi buu yidhi bal waxaad adigu hayso ee dadka u sheegaysa ii sheeg nebigu calayhi salaatu wasalaam tawxiidkii buu soo bandhigay wuu islaamay bimujarad inuu islaamay oo ah inuu fahmo islaamnimada iyo waxay xambaarsantahy oo ah inuu ashahaato ayuu wuxuu qaatay go'aanka ah mas-uuliyaddu saarantay isaguna maanta laga bilaabo inuu diintan dadka ugu yeedho cilmiguu bartay waa intaa yaruu nebi moxamed la joogay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu nebiga ka codsaday ama ka warsadayba in ilaahay subxaana wa tacaala uu alla u baryo tolkii buu ku noqonayaa iyo in diinta tolkii aqbalaan tufayl ibni camr idawsi dib buu u laabtay tolkii buu u tegey diintuu ugu yeedhay waa la hadlay meedhadhi yar mooyaan waa laga dhagaaday waa la maqli waayey markii la maqli waayey muus odhan dee wataa cidi kaa dhegaysan weyda adigu xilkiina gudatay waajibkiiska ridday cidina kaa dhegaysan weyday ee waa qof muslim oo sida hamiga diinta tan iyo inuu cid gaadhsiiyo aan ku qanacsanayn mujarad in la diidayoo qudha isagoo cabanayuu nebiga ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow reer dows gaalnimadii waa ku madax adeygeen iyo ay wadeen imaqli waaye ilaahay u bari ina ilaahay bele ku soo dejiyo habaar dadka diiday inay waxay islaam dhegaystaan habaar xadiiska bukhaari siduu sheegaya saxiixiinkaba ku yaalla bukhaari iyo muslimba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allaahumma hdi dawsan waatii bihim halkii laga sugayay inuu habaaro nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahu reer dows oo hanuuni iyagoo muslimana ay yimaadaan waa u duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ku noqday isagoo weli dareenkii qaba oo dacwaddii sii wada culamaa'i taariikh waxay yidhahdaan 78 qoys isagoo wata ayuu markii dambe nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimi oo soo wada islaamay ragguu wato yaa ka mid ah diinta alla inugu anfacayba kuwiina soo gaadhsiiyey abaa hurayre soo ma maqashaan abaa hurayra waa min qabiilati daws waa dawsi abaa ka mida ragguu keensaday tufayl ibni camar idawsi dadkuu diinta gaadhsiiyey bimujarad inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam rumeeyey ayuu wuxuu xambaaray hamiga ah inuu diintan qaado oo uu cid kalen gaadhsiiyo su-aasha isweydiinta le waxa weyaan innagu imisaynu diinta ku jirray imisaynu se gaadhsiin damaad alasdi saxaabigaasi war badan baa soo gaadho sheegaya iclaamkii dee meesha lagu haystay ee dadka la khuuqiyey nebi maxamed inuu nin waalan yahay oo jiman iyo wuxuun galeen ama balaayo kaluun haleeshay oo qof derderan oo wuxuu yaro dhiman yihiin inuu yahay waxaan u imi buu yidhi kollayba ma ka gaadhaya bal ninkaa intaad raadiso waa intaasoo ilaahay gacantaada ku caafimaad yahay waxbuu tuftufi jiraad bal waxoogaa ku akhridid qoladii fii zaman aljaahiliya jibankan iyo waxaan ilaa weligeedba waxbaa lagu tufi jiray mid saxa iyo mid qaladaba kiniisaddaa ku tufto muslimkaa ku tufo qaar kalea ku tufo waa loo fooxiyaa waxaan sidhi buu yidhi bal waa intaasoo ilaahay gacantaada ku caafimaad yahay aad waxoogaa ku waan soo raadaceeyo waanu imi buu yidhi waxaan ku idhi buu yidhi aniyo waxaan maqlay in xanuunku hayo dee waxaan rabaa inaan waxoogaa kugu tufee maxay kula tahy waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iclaamku markuu wax buunbuuniyo siduu bini aadamka u beddelo ninkii dadba ugu caqli badnaa ilaahayba basharka ka dhex doortay rasuul iyo nebi ahaa ummaddan dhan loo soo diray ayaa iclaamku dadka wuxuu ka dhaadhicinaya inuu nin waalan yahay inuu nin waalan yaho waxu dhiman yihiin kadib markaanu imi buu yidhi waxaan idhi buu yidhi waxaan maqlay in dee xanuunku soo gaadhay waxaan rabaa inaan waxoogaa kugu tufo nebigu calayhi salaatu wasalaam khudbat alxaaj ayuu akhriyey baa la yidhahdaa in alxamda lilaahi naxmadu wanastaciinuh khudbadaasuu akhriyey man yahdi illaahu falaa haadiya lah falaa mudila lah waman yudlilu falaa haadiya khudbadaasuu nebigu akhriyay calayh salaam biriwaayaatiha almukhtalifa axaadiista qaarkood xamdale iyo intaas
xadiis qaarkood waa ka yara dheerayaan naska saxiix muslim uu ka gaaban yahay ama dhammee ama gaabe adigu saa doontaba bal nusuusta isugu duduwo khudbat alxaaj ayuu nebigu ku akhriyay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu ku yidhi acidhaa calaya iigu celi markaasuu ugu celiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu ku yidhi acidhaa calaya iigu celi mar saddexaad buu ugu celiyey wuxuu yidhi anigu gabayaa waan arkay oo sixroolo waan maqlay oo kaahin waan maqlay oo kan waan maqlay waa warkanaad sheegaysaa intaa midna uma eka dee nin waalan haddaad hadal saddex goor tidhaahda ku celi wuu ku derderi lahaa marka hore markuu wax kuu sheego nin waalan haddaad tidhaha ku celi wax kaloo haddana akhrii lahaa dee mar labaadka haddaad tidhaha ku celi wax kaluu sheegi lahaa waxaa muuqataa ninkani nin waalan inaan ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo muuqda waxaanuu ka hadlayaa khudbat alxaaj waa tawxiid iyo xamdale iyo istikfaar iyo tashahud wuxuu ka warramayaa inay tahay mantiqii dacwada islaamigaaba wixii uu dadka ugu yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam calaa kullin meeshan u socdaa waxa weeyaan wuu islaama damaamkii rabay inuu wax ku tufo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu islaama markuu islaamay ayuu wuxuu ku yidhi keen gacanta baycan kula gelaya heshiis baan kugula gelayahay waa islaamkan qaadanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu heshiiska la galay buu wuxuu ku yidhi wa calaa qawmik keligaa ma rabo dalkaana heshiis ugula gal waa ninka hadda islaamay ayaa laga rabaa dacwaddaa inuu xambaaro oo qabiilkiisii intuu u tago inuu isagu diin gaadhsiiyo ninkaa hadda islaamay ayaa la rabaa inuu xambaaro diinta tana uu gaadhsiiyo tolkii oo uu nebigu rabaa inuu heshiis hadda kula galo calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu yidhi wa calaa qawmi naftayda iyo tolkayba labadaba waa kugula gelaya tolkiina wuu gaadhsiiyey diintii yacni waxay ahayd dacwadda islaamigu fii cahdi asaxaaba oo fii jiili muslimiintiiyo koowaad wax la mida qariinulaa'i ila alislaam qofku inuu islaamnimada qaatay oo uu muslim noqday ayaa waxay ku fillayd inuu daaci yahay inuu diinta soo galay ayaa waxay ku fillayd inuu daaciyey kuwa aynan arkayninna qur-aankaa saasoo kale inooga sheegay yacni saxaabadii la arkayee bidhaantooda la yaqaannay iyagaa ka warramay axaadiistaa soo aroorisay nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam jin iyo insiba waa loo soo diray xataa jinkii rumeeyey dariiqadan buu isna maray jinku inay dariiqadan mareen iyaga axaadiis saxaaba inooga soo warisay ma jirto laakiin rabbu samaawaati waalardi baa ka warramay iyana ka warramaya inay baabkanun wadeen saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy waid sarafnaa ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'aan falammaa xadaruuhu qaaluu ansituu فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله آيات كاسي في سورة الأحقاف قبل يدا كتشيرا ربي سبحانه وتعالى نبي محمد مركو قرآن كدميي iyana ducaad bay haayeen waxay bilaabeen inay tolkoodu yeedhaan baa la yidhi subxaana wa tacaala yacni qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa bimujarad inay qur-aan dhegaysteen oo islaameen oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam rumeeyeen inay dareemeen mas-uuliyadda in dacwadan iyagana saaran tahay inay xambaaraan markaaba oo cidda ka dambaysa cilmi intee laga bay barteen waxa la sheeguun inay aamusays yidhahdeen oo qur-aan dhegaysteen intaasay barteen ti qur-aankii uu nebigu akhrinaya calayhi salaatu wasalaam ayay barteen kadibna way laabteen waxay la laabteen wallow ilaa qawmihim mundiriin qaaluu yaa qawmanaa innaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa musadiqan limaa bayna yadayhi yahdi ila alxaqi wa ilaa طariiqi mustaqiim kayow bay yidhahdeen waxaannu soo maqallay kitaab la soo dejiyey muuse gadaashii oo wixii muuse uu wadayna rumaynaya xaqana dadka ku hanuuninaya iyo jidka toosan yaa qawmanaa ajiibuu daaciya allah tolkayow maqla ilaahay subxaana wa tacaalaa kan diintiisa dadka ugu yeedhaya wa aaminuu bihi yakfir lakum allana rumeeya subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisaba ilaahay baa dembigiinna dhaaf iyo cadaabka idinka dhow yacni waxaan u deliishanaynaa un inaan fahamno haddaynu insigii saxaabadaa fahamnay saxaabadii jinka ahaydna ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam diinta ka dhegaysatayna inay mas-uuliyaddaa xambaareen bimujarad inay qur-aanka maqleen dunidaynu maanta joogna waxaa la yaqaannaa ama sidii ibnu khalduun iyo ay qori jireen waxaa la og yahay
dadka xadaaraadka maadiga ee sarreeya leh inta badan inay dadka kala jebiyaan mentale u jebiyaan. saxaabadii nebi maxamed waxay iyagu isu arkayeen maadaama macallinkooduna nebi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam, warkay xambaarsayiin ay rumaysayiin inuu ilaahay toos uga yimi, dadka inta hadhay inay iyagu macallin ugu yihiin baabkan. waxay rumaysanaayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam afkiisa inay ka qaadeen warkanina inuu ilaahay ka yimi. saa daraaddeed dadka inta kale waxay u arkayeen marka ay joogto valueska iyo caqaa'idda iyo sharciga markay joogto inay iyagu yihiin dadkii dunida waxbari lahaa. markay see birta iyo maadada iyo waxa kala joogto inay dadka kala mid yihiin oo ay ka qaadanayaan. markay muslimiintu dagaalada bilaabeen futuuxaadkoodii ayay bershiya istileen. bershiya waa dawlad qadiim ah, waa dawlad muddo soo jirtay, waa dawladdii jebisay markaa dawladdii romanska ahayd. waa dawlad kaljar maamul leh oo kala dambayn leh oo ciidamo leh. waa dawlad xadaaro leh oo thaqaafo leh. waa dawlad qaab maamul leh. muslimiinta markii dagaalku cabbaar socday ayay waxay damceen inay wadahadal la furo. wadahadalkii waxay codsadeen in loo soo diro cid muslimiinta ka midoo ay wada hadlaan. ninkii boqorka markaa haystay ee ciidamadan hogaaminaya wuxuu ku talagalay nimankan inuu jebiyo maskax ahaan. markaa meel buu goglay, waxaa la dhigay kaarbadyada cascas. dabeetana sariirtii boqortooyadana meel baa la dhigay. sariirta boqortooyaduu fuulay. saddex saxaabi mid baa loo soo diray, markaasuu la hadlay, wuu noqday. war bal mid kale ii soo dir buu yidhi. mid labaad baa loo soo diray, wuu noqday. war bal mid kale ii soo dir buu yidhi. mid saddexaad baa loo soo diray. saddex saxaabi baa kolba mid u yimi, xudayfa iyo mugiirata bnu shucb iyo ribciy ibnu caamir. saddexdaba saddex qiso cajiiboo kala kulmay, laakiin midun baan u socdaa. ribciy ibnu caamir baa u yimi. waa nin intaa dagaal ku soo jiray, maryaha ilhaylan iska wata, faras yaroo gaaban wata, hubkiisii iska xidhan soo galay. dabeetana waxay idhahdeen hubka dhig, madaxda loolama tagee. dee madaxda anigu uma imana isagaa ii yeedhay buu yidhi. haddaad rabtaanna saydaan ugu tegay, haddii kalena iska noqon. waa loo sheego waxaa la yidhi ninkii saasuu leeyahy, bal soo daaya buu yidhi. wuu soo socday, kaarbadku iskaga soo dul socday faraskiisii yaraa ee gaabnaa. dabeetana barkimooyinka ka miduu ku xidha. dabeetana wuu u soo galay. markuu u yimi ayuu ninkani wuxuu ka fakeraya, wuxuu rabaa inuu mentally ninkan jabiyo. war haddii maxaa idin soo saaray buu leeyahay, haddii abaar iyo dhul aan waxba oolin iyo kanaa ka timaadeen, xoolaannu idin siinaynaa, waxan baannu idin qabanayna, kan baannu idin qabanayna, ee waddankiinni ku noqda buu u tilmaamaya. marka maxaa idin soo saaray baa la weydiiyey. ribciy ibnu caamir wuxuu leeyahay, allahu ibtacatana linukhrija man sha'a min cibaadati alcibaadi ila cibaadati illahi waxdah wa min jawri aladyaani ila cadli alislaam wa min diiqi dunya ila sicati dunya walaakhira. wuxuu leeyahay ilaahay baana soo bixiyey, waxaana rabbi noo soo bixiyey dadka cidduu doono inaannu ka saarno addoonsigay dadku is addoonsadaan oo freehead, dadka inaannu xorriyad u saarno, dadka inay xor ka noqdaan, bini aadamku inaannu is addoonsanin baana loo soo bixiyey buu yidhi. ilaahayoo qura in dadku addoommo u wada noqdo. waxaannu soo baxnay buu yidhi inaannu dulmiga diimuhu dadka ku hayaan ka saarno, cadaaladda islaamka u bixinno. waxaannuu soo baxnay buu leeyahy cidhidhiga adduunya inaannu idinka saarno, oo adduunyada ballaceeda iyo aakhirada ballaceeda idin geeyo. nin kale cidhidhi adduunyaan kaa saarayaa, laba goo yaryar buu sitaa iyo maxay faras yaroo gaaban u wustaa. ninkuu cidhidhiga adduunye ka saarayaana waa ninka kan meel kasta gogladay. laakiin wuxuu arkayaa bimanduurihi maca haada waxaasoo dhan uu haysto inuu cidhidhi ku nooliyey. faariqa maadiga u dhaxeeya intuu leekaa. laba masalaan idiin tilmaami. midi waxa weeyaan axadu saxaaba qolaa daqiiq yaroo farsamaysan bay cununeen markaasa. oo miyadan cahdigii nebiga munkhal miyadan haysan buu yidhi. munkhalku waa shaandhada, baashan wax lagu shaandheeyo. miyadan manaakhil haysan baa la weydiiyey. markaasuu wuxuu ku yidhi maa ra'aa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam munkhala. nebi maxamedba shaandho ma arag. hadda waa shaandhadaa yar wax ka weyndaaya. shaandhaba nebi maxamed ma arag buu ku yidhi.
markaasaa taabicigii wuxuu yidhi oo haddaa saa daqiiqda u cuni jirteen sidee baa wuxuu u samaysan jirteen nimankiina kule shaandhaba maanaan haysan jirin markaasuu wuxuu yidhi shaciirka intaannu tunno oo dabeetana haadinoo afuufno sidii reer baadiyaheennuun so intaannu idhaahno ayuunbaa wixii baalina duulaan wixii soo hadhana waa sariid baannu ka dhigan jirno dee waa cuni jirnay buu ku yidhi yacni raggan dunida sicadeeda dadka u sheegaya shaandhada daqiiqda lagu shaandhaysta maanan arag buu leeyahy alimaam ibnu jariir atabari wuxuu soo aroorinaya waxaa ka soo naqlinaya sheekh nadawi الندوي بابن جرير الطبري وحو كسو نقلنيا مسلمين مركي مدائن فرتين مدائن وعاصمة دي مركي لوغا تلين جيري دولة دي بيرشيا لوران جيري عاصمة دا مركي فرتين غورغي بوقرتوين قصورتا مركي سو غلين دي وحي الام تالي ككالي waxay arkeen buu yidhi daqiiq noocyadkaasa oo si khafiifa loo sameeyo meel saaran dabeetana manaadiil bay moodeen buu leeyahay faraha iska mariyeen waa saxaabadii wuxuu tilmaamayaa yacni faahashan farsamada lagu sameeyey inaan weligoodba arag saa daraaddeed in iyagu fara iska maris moodayeen wuxuuna fara iska maris maahe waa maxay waa cunno ragga sidaa u soo galeen meeshaasi caynkaa ahayd haddana waxay rumaysanaayeen inay iyagu saatidada yihiin inay iyagu kuwii mabaadi'da iyo caqaa'idda iyo diimaha sheegaya inay iyagu yihiin ama innaga maanta markaynu aragnay mucطiyaat alxadaara algarbiya teknolojigan galbeedka yaalla waxaynu bilownay oo su-aashan ay dib u noqotay sidee baynu manduumadeennii valueskii qiyamkii iyo caqaa'iddii wixii aynu sharcigan iyo wixii aynu sidanoo dhan see baynu u waafajin karnaa tan oo u raacsiin karnaa innagu markaa iyaga wax bari mayno ee teennii baynu rabnaa inaynu idhaahno qiraa'a jadiida waxaynu u baahanay inaynu dib u akhrino oo mucطiyaadka xadaariga ee maanta soconaya inaynu raacsiinno naska sharciga inaynu waxoogaa tabriiraada u raadinno meel kale ka saarno inaynu idhaahno nusuusta sharciga waa iska yara adag tahay maqaasidaynu isticmaalaynaa maqaasidu shariica iyo almasaalix alcaama iyo waa baabkaasoo nusuusta ajzaada ah iyaga waa ma qaadan karayno waayo innagu qalbiyan baynu jabnay imbihaar baynugu dhacay nimankaa cirka qabtay waxaynu isniin wax walba cirkay ka joogaan maynan garanin inay bini aadam yihiino xaggana kor u socon karaan xaggana hoos u socon karaan dhanna hoos buu dunidu u socotaa oo maanta dunida valueska iyo qiyamka iyo caqaa'iddu hoos bay u socdaan aqoon-yahanka dunida waaweyn in badanoo ka mid ah isku waafaqsan in hoos loo socdo laakiin technologygu kor buu socdaa technologygu aad buu kor ugu socdaa oo de hadda waxay ka warramayaan dagaallada cusub ee dhowaan la rajaynaya in la galo inaan bini aadanba geli doonin hadday dayaarad tahay iyo hadday taangi tahay iyo hadday askari tahayba man made waxayun inay dagaalami doonaan aan dadku goobta tegi doonin dayaaradda ku garaacaysaa waxa cidimo wadato taangiga kaa dulboodaya cidimo wadato madfaca soo dhacaya cidimo wadato askarigan xabadda soo ridaya waa robot oo cidimo wado technologygu halkaas inuu bini aadamku guryaha fadhiyo cirkana ka dagaalamo waddan kalena aad dumisid gurigaagana aad fadhidid yes technologygu halkaas u socdaa trendkaas u socdaa ah wax walba in waxaynu ku naqaanay ay iska beddelaan laakiin caqaa'idda iyo valueska iyo qiyamka iyo akhlaaqiyaadka iyo dhaqanku hoos buu sii socdaa bini aadamka iyo qiimayntiisu way sii lumaysaa waxba ha eegin dasaatiirta waxa ku qoran waxa lagu dhaqmaya eeg dasaatiirta waxa ku qoran bugaagta waxa ku qoran bay la mid yihiin wax waliba waxay u sii socdaan hoos laakiin inagu materialka markaynu munbahar ku noqonnay inferiority complex baa inagu dhacay waynu nafsiyan baynu u jabnay dabeetana inuu ceeb yahay waxaynu sidanay ah baynu dareennay su-aalaadka yurub la isweydiiye waxaa ka mid ah masquulaa ma ku tukan karaa iyo meelama yacni ceeb baad dareemaysaaba in lagu arko adoo foorfoorarsanaya dee waad ka khajilaysaa marka ninka inuu salaad ilaahay u tukado ka khajilaya ma cid kale wax gaadhsiinaya ninka inuu ilaahay u tukado ay ku dhib badan tahay ka khajilsani
ma cid kale wuxuu sheegi karaa ama cid kale wax gaarsiin karaya waxaynu raadinaynaa qatciyaadkii sharciga ayaynu waxaynu raadinaynaa tabriiraad kale iyo meel kale aynu ka bixin karno si kale aynu wax u dhigi karno soo duuduuba waxaynu leenahay waxay soo naqliyaa ibnu taymiya ibn alqayim iyo kitaabadoodan ay nimanka kristanka kula doodayaan ama diimooda kaga warramayaan iyagoo dooda qole la gelayo ay qolada yuhuudeed leeyihiin waxaanu ama ahlu kitaab ay leeyihiin waxaanu ictiraafsannayn maxamed inuu nebi ahaa laakiin dee annana nebi aanu leenahay nebi carbeed u ahaa yacni markay jabeen waxay qaateen inay aqbalaan xadaaradan dhan iyo dawladdan weyn iyo wax kani malaa nin beenaalaa dadkanoo dhan ima daba socdaane dee nidhaahna ninkani xaq buu ahaa laakiin wuxuu xaq u ahaa un carab buu ahaa nebi carabta loo soo diraye annaguna kaayagii baanu haysanaynaa idinkuna kiina ummad kastoo jabtaa saasay u fakertaa waxaan isweydiinaynaa markaa maxaa saxaabada ictizaaz maxaa nooleeyey waxaa nooleeyey nabcigay ka cabbeen baa saafi ahaa waa marka koowaad ilaah iyo rasuulkiisay toos uga cabbeen waxay u sheegeen waa marka labaadee diintay baranayeenba inay ku dhaqmaan u baranayeen waa marka saddexaadee waxaynu leenahay ilaah iyo rasuulkiisu waxay sheegaan bay yaqiin ahaan run u haysteen hal tusaale aan la siiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay habeen maka ka qaaday dabeetana madiinaa la geeyey madiine maahae waxaa la geeyey bayt almaqdis bayt almaqdis baa laga dheelmiyo waxa la qabadsiiyey maxay cirka waa la soo celiyey wuu yimi qoraysh baa la kulantay haye bay dhahan bal saakana warran umuu sheegin tii sare ee wuxuu u sheegay tii soke wuxuu yidhi xalay baytalmaqdis baan togo ka soo noqda iyagu ku jeesjeesay yidhahdeen oo dadka ma u sheegi karaysaa haa buu yidhi waa la isugu yimi oo nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xalay maalintaa maka laygeeyey baytalmaqdis baan ka soo noqda su'aalay weydiiyeen oo ilaahay baa sida tv-ga u hordhigay oo uu uga jawaabay waxaasoo dhan uma socdo abibakaroo meel joogaa loo tegey oo la rabo in lagu jeesjeeso saaxiibkaa wuxuu maanta sheegtay ma ogtahay baa la yidhi markaasuu yidhi muxuu yidhi wuxuu yidhi xalay baa laygeeyey mako laygeeyey bayt almaqdiso haddana waa lay soo celiyey lain kaana qaalahu buu yidhi sidaa miyuu yidhi haa bay yidhaah hadday dhab tahay warkiinaasi buu leeyahay hadday dhab tahay inuu yidhi run buu sheegay waayo cirkaa layga soo waxyoodaa baan ka rumaystaa buu yidhi ma waxaanan ka rumaysanaynin meel yaroo dhulka ku taalluu ka soo noqday ayaan ka rumaysan waxaan ka rumaystaa buu leeyahay cirka looga soo waxyoodo adna waxaad ka warramaysaa magaalo dhulka ku taalluu tegay oo ka soo noqday idan yaqiintaasay qabeen waxaan ku soo koobayaa markaa saxaabadu waa jiil taariikhda ku weyn islaamnimada ku weyn cinda allaahi ku weyn nusuus qur'aan iyo xadiid ay sheegayaan in badanoo ka mid inay ahlu janno tahay ilaahay baana saa u doortay inay diintan xambaaraan heerkooda lama gaadhi kara laakiin diintan waxaa loogu talagalay ilaa qiyaami saaca inay jirto inay jirtaa waxay ku xidhan tahay inaynu sidii ay manhajka ula kulmeen ula kulanno waynu ilaahiyo rasuulkiisa toos uga qaadanno waxaan kale lagu dheehay ee bariya galbeedba ka yimi ka daadinno iyo inaynu ku dhaqanno oo fulinno iyo inay siday iyaguba uga xuubsiibteen jaahiliyadoodii uga xuubsiibanno wixii aan diin ahayn oo ilaahay tiisa ku dhaqanno iyadoo dagaal laga soo noqdo la soo socdo ayaa dabayl xoogani ku dhacday dadkii markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dabayshan aan arkaysaan waxaa loo soo diray mid munaafaqa inay disha buu nebigu yidhi madiinaanu nimi ayuu leeyahay saxaabigu markaanu madiina nimina faidaa munaafiqun cadiimun min almunaafiqiina qad maat xadiis saxiixa muslim ku yaala waxaanu nimin buu yidhi munaafiq weyn oo munaafiqiintii ugu caansana ka mid ah oo bahashuu dishay oo dhintay waxaan ka warramayno dhan waxay tilmaamaysaa caalimu alghaybi falaa yuhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuul fainahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liyaclama an qad ablaguu risaalaati rabbihim waaxaata bima ladayhim waaxsaa kula shayin cadada ilaahay baa haybka og keligii cidna uma muujiyo ilaa iyo rasuuluu raalli uga yahay mooyaane baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala nin muslimiinta dadkii la socday dagaalamaya ka mida buu ku yidhi hada min ahli naar kani waa ahlu naar
أبا هريرة وحليه ninkii intuu dagaalamay oo dadka barshakiyeen boo yidhaahdeen ma ninkan sidaan u diriraya muslimka sidaan u difaacaya ahlu naara ayaa la yidhi hebel maanta wuu dagaalamo si u dagaalamayo wuu dhintay waraabaa timi markaasaa dadkii shakiyeen ninka had dagaalka ku dhintay jihaatamay baa la leeyahay waa ahlu naar dabeetana kadib baa warkii beenoobo la yidhi war ninkii uma dhimanin ee waa dhaawac culus oo waa jiifaa kadib ayuu ninkii dhaawacii intuu adkaysan kari waayuu seeftiisii qaado isaga isdilay markaasaa nabiga loo sheego la yidhi ninkii isaga isdilay allahu akbar buu nabigu yidhi ashhadu annii cabdullaahi wa rasuuluh ilaahay baa weyn waxaanan qiraya ka markhaati kacaya inayna ilaahay addoonkiisii iyo rasuulkiisii ahay bilaal buu yidhi u yeedha u sheeg dadka haddaba waxaad ku tidhaahdaa إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر إلهي سبحانه وتعالى جنة مقالية نفعا مسلمة هين دين تنة مركة قاركوت كفاجرة أيا اللوغو قرقارة ويد دفاعه حديثك بخاري وريه لكن متكلم صحيحين كبا وريين سهل بن سعد ساعدي وحط الماما يقصة كان ويك ننقذ زمان لورنشري oo muslimiinta la dagaal galay oo aan shaadda wala faadda mid dhaqaaqday aan ka tagin maalinta dagaalka isagu baa dadka mariyay markaasaa la yidhi ilaahay rasuulkiisiyo maanta goobtii dagaalay maanta qasbaan baa iska leh wixii rag la dilay iyo wixii mushkilad ka dhacday ninkaasaa maanta geystay oo noogu geystisana markaasuu yidhi amaa innahu min ahli naar laakiin ninka ii sheegaysaan waa ahlu naar buu nabigu yidhi dabeetana nin saxaabiyo ogsom la yidhaahdaa yidhi ma nebi maxamed kaasuu yidhi waa ahlu naar haa anugu maanta dagaal shaqo qaban maayo ninkan baan dabagelayaa bal wuxuu sameeyaan ilaalinayaa buu yidhi u dabagalay wuxuu yidhi markuu faraska fuulay eryana waan soo daba eriyaa markuu yaro gaabiyana waan gaabiyaa anugu shaqo kale ma qabanaya ninkanun baan eegayaa buu yidhi bal maanta xaalkiisu wuxuu noqdo sidii ugu dagaalamayay buu yidhi wuu dhaawacmay markaasaan dhaawaciisii imi dabeetana dhaawacii intuu xejisan kari waayey ayuu seeftiisii intuu dhulka ku taagay ayuu dusha kaga booday buu leeyahay dabeetana seeftiisii baa disho wuu dhintay saxaabigii wuxuu leeyahy waan soo noqdoo nebigaanu imo waxaan idhi ashhadu annaka rasuulullah ninkii ninkii daba ordayay raadcaynayay intaan nebiga ku soo noqday baa waxaan ku idhi buu yidhi waxaan ka markhaati kacayaa inaad ilaahay rasuulkiisii tahay markaasuu nebigu yidhi maxaa kugu cusub yaani maxaad aragtay dabeetana wuxuu sheegay ninkii inuu maantaba daba socday aakhirkiina ninkii inuu isagu isdilay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ina arajula la yacmalu camala ahli aljanna fima yabdu linnaasi wahuwa min ahli الnaar wain arajula la yacmalu camala ahli الnaari fima yabdu linnaasi wahuwa min ahli اljanna dadka badhba sida dadka u muuqata ahlu jannaa camalkooda sameeya ilaa xagga dambe marka la gaadho ay ka weecdaan oo ay ahlu naarka ku biiraan dadka qaarna ahlu naarka camalkooda ay sameeyaan ilaa saa dadka u muuqata ilaa marka dambe la gaadho ay ka weecdaan oo ay ahlu jannaa noqdaan yacni alumuuru bikhawaatimiha qaarna xagga dambuunbay ama ka gaaloobaan ama ka imtixaanku kaga dhaca isagoo waagii horena fiican ahaan jiray qaarna isagoo markii hore mushkilad badnaabuu xagga dambe ka toobad keenayo isagoo saalixa ayuu dhintaa weeyaan waxaa ka mid a masaa'ilkan baynu leenahay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xiraa ayuu fuulay waa jabal min jibaal maka isagoo fuushan oo ay la socdaan abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo caliy iyo talxa iyo zubayr ibnu alcawaam waa raggii casharatu lmubashiriin gruub ka mid iyadoo ay la socdaan ayuu dhagax la dhaqdhaqaaqay markaasuu nebigu intuu ciribta ku dhuftaybu wuxuu ku yidhi ihda famaa calayka ilaa nabiyun aw sidiiqun aw shahiid deg buu ku yidhi korkaaga ma saarra nebi iyo sidiiq iyo shahiid mooyaane cid kale korkaaga ma saarree anas ibnu maalik xadiid kaloo bukhaari warinaya kaasi saxiixu muslimku ku yaalle baa wuxuu sheegayaa jabal uxud buu nebigu fuulay
isagoo ay la socdaan abibakar iyo cumar iyo cuhmaan saddexdaasi uunbuu sheegay marka kan markaasuu gariiri buurti markaasuu nebigu cagta ku dhuftay dabeetana wuxuu yidhi uhbut uxuday sugan fainamaa calayka nabiyun wasidiiqun washahiidaan waxaa korkaaga saaran nebi iyo sidiiq iyo laba shahiid afartaasaa korkaaga saaranee deg buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam يعني حديث كوحو تلماما يا إنه النبي محمد نبي كو أبي بكر نين الصديق يهي قوب دقالنا أنو كل مرينين لبدا الصحابية كلنين لديلي دونو كعن كقردراني إنو يديلي دونتو انت سيبا وحي شيغيسا إنو يهي محي وغيب هدان كوي هوريان سو شيغنا يوردم انت بدان قالينو كورانيا ميلهي كل مريان markana waxaynu tilmaamaynaa muslimiin saxaabadiisii ka mida nebigu calayhi salaatu wasalaam oo uu leeyahay waa laydin dilayaa geeri caadiya dhiman maysaan nebigii abibakar geeri caadiya ay dhinteen ama cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo talxa iyo zubayr dhammaantood dulman baa loo dilay dhammaantoodba aan bal mid mid u tilmaamno عمر نبي عليه الصلاة والسلام ومرأة عصب ستو أرك مرأة حرن نظيفة كسر النبي وحكوا أجديد ثوبك مغسيل مرأة أنا ما تحرن تمي عصبت مسوى مرأة ما يداي عمر بوحدي بالغسيل ما إله رسول كسي وامدان ما يداي نبي وحكوا البس جديدا وعيش حميدا ومت شهيدا مرأة عصب حرن adigoo mid la mahadiya ama mid ilaahay mahadinaya noolow wamut shahiida dhimo adoo shahiida saxaabadii uu nebigu sheegay siday u dhinteen cumar isagoo imaamulmuslimiin ah oo salaad subax dadka tukinaya ayaa waxaa soo galay abulu'lu'at almajuusiy mugiirat bnu shucb addoon uu lahaayo بيرشيان إيراني فرسما يقانها ومدي صوتهم طي لبضا دبا فوله حقي حق ابو وحو جلسه سته ايا صلاه الصور حق علي دبتنا عمر ايو دين عينتو كغليو سوريجي او امامه او داي صدح يا 10 صحابه كميدنا ميدو ديله iyo midu dhaawaco ayuu ka dhigay عمر wuxuu dhintay markaa isagoo salaad ku jira ayaa toori lagu dilay nebigu siduu sheegayay buu shahaado qaatay عثمان بن عفان maalmaa ka mid ah Abu Musa al-Ash'ari wuxuu sheegayaa isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu beer soo galay buu ceelka ku yaalay ayuu intuu kaabada ceelka ku fadhiisto caga ku laalaadiyay isagoo meesha fadhiya ayaa albaabka beerta kolba qof garaaca markii dambe waxa garaacay Uthman markuu soo garaacay ayuu Abu Musa u tago wuxuu ku yiri man hada wa kuma wuxuu yiri waa Uthman ibn Affan sug buu yiri nabiga ku sheegay nabigu soo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri Uthman baa albaabka garaacaya raba inuu soo galo nabigu wuxuu ku yiri idan lahu wabashirhu bil janna ala balwa tusiba oo ogolow ha soo gale jannadana ugu bushaaree balaaye inay haleeli doontana u sheeg buu ku yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam balaaye inay haleeli doontana Abu Musa wuxuu yiri waan u imi dabeetana waxaan ku yiri nabigu jannana wuu kugu bushaareeyay balana musiibana waa kugu dhici doontaa ayuu ku yiri Uthman wuxuu yiri alxamdulillah wallahu almusta'an jannadii lagu bushaareeyayna ilaahay buu mahadnaqay مصيبة الله شاقينا والله المستعان بيدي إلهي بانو كالميسا حين نغانا عثمان يسوى أمير المؤمنين يا قال الثورة كعسان ومصر يحقا كيمي ولا وحبانو بدلين أبا صوق علي مدينة تبتنا الصحابة دي وحيدا بعدين مدينة دفاع ده وحديديك مسلمين للضادية مرة بوقفنا ما تقال من كرو هل يدادك هلو إلاليو مايا أنا أنا عدي دمان ما يسوي دمانتين هداي مغلسان نولو بقولي قبو هو ذا دريري
ismaan wuxuu diiday ciidankii muslimiinta ee madiina joogay inay difaacaan wuxuu kaloo diiday isaga gurigiisa in la ilaaliyo nimankii kacsanaa gurigiisa isku weegaareen magaaladii bay qabsadeen masaajidkii bay tukiyeen waxa la yidhi nimankii masaajidkiina way haystaane maxaynu yaallaa waxay sameeyaan salaad baa u fiicane haddii ay salaadda wanaajiyaan dee la tukada buu yidhi salaaddu un soo maaha waxay idin tukinayaan salaaddii baa lala tukaday qur-aan buu isna iskaga akhristay gurigiisii oo fadhiya xagga dambe ay gurigiisa uga soo dhaceen isagoo qur-aan dul fadhiya oo akhrinaya ayuu seefta geliyeen dabeetana kitaab qur-aan isagoo akhrinaya lagu duldilay cuthmaan oo ah markaasi amiirulmu'miniin sidii uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam balaayadaasaa haleeshay balwada waanu ku sabray waana la dilay isagana ثالث المبشرين بالجنة أيو نوضي ونبي عليه الصلاة والسلام مركو يدي كوركاغا مصار نبي يا الصديق يا اللي بالشهيد مو يعني اللي بدأ بس الشوكة هذا قاتل علي بن أبي طالب نبي عليه الصلاة والسلام وحوشاق إنو ديلي دونه أشقى القوم ضدك نينك أشق السنبا كديلي دونه بالنبي كويري dhafoorka intuu kaaga dhufto oo kaa kale kaaga dhufto ayaa dhiigu gadhka kaa dareeri doonaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam cali ibn abi taalibna saasaa loo sheegay in birta halkaa lagaga dhufan doono halkaan lagaga dhufan doono dhiiguna inuu gadhkiisa ka da'i doono ninkaa dili doonaana inuu yahay ashqannaas dadka ka u shaqisan cali wakhtigii uu imaam almuslimiinka ahaa buu xanuunsaday isagoo bukoo jiifa أيا أبو سنان الدؤلي باويمي دبيتنا وحده لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذا أمير المؤمنين كو والله ما أنت حنون كان وكو عبصن النبي حنون كان كو هيا سانا ضبكته عبصي بيلا دينا تجيريوتان وكبغينا عالم مركاو حكويدي لكني والله ما تخوفت على نفسي من هذه أنا بيقولي كان إيجا بغيسان والله إن أنا نفتي لو بغين بيقولي وايا baa la yidhi wuxuu yidhi nebi maxamed baan maqloo leh halkaa inta lagaaga dhuftaabaa dhiig kaa da'i doonaa oo halkaa kale inta lagaaga dhuftaabaa dhiig kaa da'i doonaa oo gadhkaa dhiigu ku casayn oo ka ku dilaana ashqa naasi buu ahaan doonaa sidii hashii reer tamuudkii gowracay oo ashqa naas u ahaa markaa cali wuxuu leeyahay war anigu xanuun ku dhiman maayo iska taga iyagu waxay leeyihiin bukaankan ku haya inay nafta kaa baxdaa baanu ka baqaynaa calina wuxuu leeyahay aniga nebi maxamed baa ii sheego goob xanuun maaha meeshaan ku dhimanayaaye meel kalaan ku dhimanayaa laakiin bukaan u dhiman maaya buu ku yidhi cali ibn abi taalibna waxaynu naqaanaa niman khawaarija ayaa yidhi muslimiintan isdildilaysa rabshadooda madaxdaba aan layno xajkay isku dhaarsadeen intay xajka isugu yimaadeen bay isdhaarsadeen qolana inay xaggaa qabato iyo kuufa iyo dhankaa oo ay cali ka takhallusto qolana masar iyo xaggaa intay qabato mucaawiye iyo camar ibnu caas inay dilaan kuwii xaggaasi may helin laakiin cali ibn abi taalib isagoo salaad subax u soo baxay ayuu kani haleelay halkuu nebigu sheegayey buu seefti kaga dhuftay iyo halkii la sheegayey sidii baanu calina uu ku geeriyooday waxyaabaa caddaynaya dalaaisha waxaa ka mid a nebigu calayhi salaatu wasalaam ee saxaabadiisi iyo qaraabadiisi uu ka warramaya طلحة iyo Zubayrna waxaynu naqaanaa iyaguna dagaal iyagoo ka soo noqday oo mid walba intuu dagaalkiis kaga baxay meel cidla jooga in iyagana la dilay intii uu nabigu yiri waa shuhaday noqonayaan dhammaantood dulman baa loo dilay dagaal baa intiiba waa la laayay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu timi inantiisi Faatima markaasuu soo dhaweeyay عائشة وحيلة دينتي سمرك وصاق الشيء بو حكويري مرحبا بابنتي سو دو وين انت يدي تبتنا دين عيسو فريسي وربو شاقي مركا انتي سي عائشة مغلي ما يسمى شي فردانا مركا سي اويدي وفاطمة اوتمي النبي عليه الصلاة والسلام نبي سو دو مركا إلا فريستين وربو شاقي وي اويدي مركا سو هدنا وركا لو شاقي مركاسي قصشة
goob quray oyday oo qosashay caaisha waxay tidhi weligay farxad iyo oohin isdaba socdo oo intan isu jira maan arag bay tidhi muxuu kuu sheegay bay ku tidhi faatima waxay tidhi sirta nebiga faafin maayo markii uu nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam kadib ayay caaisha tidhi bal ii warran haddaba maalintii maxaa laguu sheegay aad marna ooyeysay marna aad faraxsanayd waxay tidhi faatima nebiga wuxuu igu yidhi jibriil sanadka kan awal sanadkii mar buu iman jiray ramadaanta mar buu qur-aanka la subcin jiray jibriil way mudaarasa wada samayn jireen wada daraasayn jireen malakul jibriil iyo nebigu ramadaantan buu nebigu ku yidhi laba jeer baanu wada mudaarasaynay umana arko inay ajashaydii tahay mooyaane arrinkaa waxaan u arkayaa inay geeridaydii soo dhowaatay adiguna waxaad noqon doontaa ehelkayga qofka ugu horeeya iga daba yimaada aniguna waan dhimanayaa adna waad iga soo daba dhiman doontaa markaasay ooyday markaasuu ku yidhi miyaanad raalli ka ahayn inaad sayidatu nisaa'i ahli aljanna noqoto dumarka jannada gabadha hogaaminaysa inaad ahaato ama nisaa'ulmu'miniin inaad sayidadooda ahaato markaasay farxaddii qosashay yacni marna wuxuu nebigu u sheegay inuu isna geeriyoonayo iyana ay ka daba iman doonto marna wuxuu u sheegay maxay inay ahlu janno tahay marna waa ku faraxday marna waa oyday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu dhintay faatimana 6 bilood bay noolayd nebiga gadaashi 6 bilood kadib ayay ka daba geeriyootay idan xadiidkani 3 shay buu tilmaamayaa wuxuu sheegayaa faatima inaanay dhiman doonin nebigoo dhinta mooyaane nebigu inuu hor dhiman doono waanu hor dhintay waxay kaloo sheegaysaa reerkiisa qofka ugu horeeya ee ugu soo dhiman doona nebiga gadaashi qofka ugu hor dhiman doona faamiliga nebi maxamedna inuu yahay maxay faatima iyadana u hor dhimatay wuxuu kaloo sheegayaa inay sayidatu nisaa'i ahli aljanna tahay in shaa allah waana tahay waxyaabaha tilmaamaya waxaa ka mid ah faamiligiisa ku saabsan nebigu calayhi salaatu wasalaam haweenkiisii mid ka mid ah oo maymuuno la yidhaahdo ayuu wuxuu yidhi maymuuno adigu maka ku dhiman maysid adigu meesha lagugu aasayaa aad ku dhimanaysaa maka maaha maymuuno waa dambe xanuunsatay maka iyadoo joogtay xanuunsatay markaasaa xanuunkii ku adkaaday naftaa ka bixi weyday dabeetana dadkiiba u yeedha waxaa ku tiri war dhegaysta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ii sheegay maka inaan naftu igaga baxaynin war meeshan ha layga qaado waa la qaaday markii la marinayey sarif waa meeshuu nebi maxamed ku aroostay iyada markuu guursanayey iyadoo xagga loo soo socdo sarif geedkaa markay maraysay baa la hoos dhigay dabeetana halkaasaa naftu kaga baxda siduu nebigu sheegay maka waa ku naftu kaga bixi weyday markii laga saarayna halkii loo sheegay bay naftu kaga baxday dadku geeridooda ka warramay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah inankiisii xuseen ahaa yacni inanku awowga u ahaa ee inantiisu dhashay faatima dhashay alxuseen ibnu alcaliy ayaa soo galay wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo haweenkiisii mid ka mida la jooga laqad dakhala calaya albayta malakun lam yadkhul calaya qablaha maanta waxaa iigu soo galay guriga malag aan weligii hore igu soo gelin malaggii ii yimi buu nebigu leeyay wuxuu ii sheegay ina bnaka haada xusaynun maqtuul inankaaga kan ah ee xuseen ah waa la dilayaa buu igu yidhi haddaad rabtana weliba waxaan ku tusi doonaa meesha lagu dilaya ciiddeeda dabeetana ciid cas buu tusay buu nebigu yidhi calayhi salaatu meeshuu nebigu jooga ma aha ciid cas ma leh malag baa yimo wuxuu ii sheegay inankan aan awowga u ahayn la dili doono wuxuu kaloo ii sheegay meesha lagu dilayaa inay tahay meel ciid cas leh xadiidku imaamu axmed iyo xaakim baa wariyey sheekh albaanina waa saxiix buu leeyahy hijradii nebiga 60 sano kadib ayaa la dilay xuseen waxaana lagu dilay maxay
كربلاء ماشان الشيعة يمكن يسقطون تنطو هل كان سأل لو دلي ما العيد عسله وكربلاء الله يلاحظه أي لو دلي